السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسنا قيارتها هوذا إن قد داوتاي كسر دوادا برامج كيني تدبع الله أها أتيتو سوقد داوتان الصومالي والمر إريا ما أنت برامج كوحة مرتي إنه جو مرتي علسنا إنه جو على آذن ومدح هيدا بريتش هيلين سنتر وحنا نقصه بقضي استوديوها أو كيا لحرونتا CIC مقالة والمر علي مركه هراء كسر دوا مقالة والمر قبل كمينيسوتا. ما حسنت يا ليلى وندو. marka xigta cali waxaa tahay madaxa Bridge Healing Center waxaad naga warantaan barnaamijyadii aad qabataan maxaa kamid ah ليلى حرونتا Bridge Healing Center waa xarun ku takhasustay xanuunaha dhimirka iyo mukhadaraadka iyo wacyigelinta waxay ka furantay St Cloud waxaan furnay sanadkii hore la soo dhaafay marka shaqo badan baan ka qabanaa xanuunaha dhimirka iyo wacyigelinta mukhadaraadka iyo dadka mukhadaraadka la tacaalaya sida loo daweyn lahaa iyo meelo loo heli lahaa magaalada Singalore iyo Wilmar waxba isma dhaamaan waa laba magaalo isku dhagan magaalada Wilmar maxay idinkaga aadan marka waa runta St Cloud iyo Wilmar waxa weeye laba mataana weeyaan hadda eegtiina dadkii degan waa isku mid dhibaatooyinka dadka haysata St Cloud waana haysata Wilmar marka waxaan naga yaala inaan laba shaqadaba sii wadno haddii St Cloud tahay iyo Wilmar tahay labadaba inuu mid noqoto imika xarunteena waxay ka furantahay St Cloud laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah dhawaan inaan ka furno xafiis halkan Wilmar marka la eego muqaadaraadka dhibaato fara badan ayaa Soomaalida ka haysato Minnesota guud ahaan ay u badan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed idinka ka barnaamij ahaan maxaa idinkaga aadan muqaadaraadka dhalinta Soomaaliyeed ee la daala dhacayso waa su'aal fiican waa laba qayb waa qayb horta qaybta wacyigelinta anu aan isleeyahay waa qaybta ugu muhiimsan qaybta labaadna waa qaybtii dawadii iyo kabashadii qofku ka soo baxo qofku markuu galo mukhadaraadkii uu ku jiro xoogaa way adagtahay soo uga soo baxo laakiin waxaa jira dawooyin xaruna loo diro xarunta waxaa ka mid xarunta Bridge Healing Center oo dhawaan asleenahay qaybtaas inaan furno qaybtimka xanuunaha dhimirka way furantahay sanadkii hore la furay laakiin qaybtii qofkii marka laga daweyn lahaa lagu xareyn lahaa u seexan lahaa cashiro la siin lahaa wax yar baa ka hadhay marka sanadkan gudihiisa insha Allah rabnaa inaan sii furno markaan furno qaybtaasna waxaan rabnaa hadduu qof joogo dee Wilmar joogo oo la tacaalayo xanuunahaas waliba qaybtani waxa way qayb Soomaali leedahay waa badan yahay afka Soomaaliga ku hadlaaya shaqaaluhu waa Soomaali ana kamida dad kala kamida hablo iyo wiilal isku jira kalsooni badan ay markaas waalidiinta ku qabi karaan waxa waalidkii wala la hadli karayaa imka dhibaatada kamid tahay qofkii marka loo diro xarunta wacyigelinta ama meeshan lagu soo xanaanayo laga sababiyo xanuunahan mukhadaraadka waxa dhacda wiilkii waa la xareeyay ma gabadhii meel baa lagu xareeyay waalidkii wali guriga buu joogaa lama socda wiilkii ama gabadhii waxay soo baranayso waxa isbedelkii soo dhacay qofkii marka waxa dhacaya marka waxaan soo dhameeyay 3 bilood ma 6 bilood ku jiro wuxuu ku noqonayaa xaafadii wali waalidkii isku xirna meeshii wali waa dushu ka haya laakiin lama socdo progresskii iyo horumarku qofkii soo sameeyay wiilkiina waxa soo tagala inuu ama gabadhii inay aqoon fiican ama waalidkii chance fiican ma cilmi ma si fiican uma sharaxaan ma ogtahay marka qofkii markuu shaqaale iyo staffkii yihiin dadkii ka therapistki Soomaali yihiin labadii waa dhibaatadii dhex taala xanuunkan mukhadaraadku hal qof ma saaro waa reerka oo dhan waalidkii uu saameynaya ciyaalkii uu saameynaya ciyaalka kale oo laba day oo ka yar uu saameynaya saameyntaas waa cunugii uu isha ku hayo fiirinaya marka hal qof baa tagay oo soo dawa tagay intii kale wali ما تجي therapy كمان هذا الأرنتي وحي صار على كلام لما بوكسون موقتها مركز دبعت هذا ويت على قفكم مركز صار نقضاء وكسر نقضته وبدلنا على قفكم أحس قف لح بلاد وكسر بوكسلي هو مر في عم بسماني لكن مركز كسر نقض جوري وحلو كل ما يا مركز والد ولي حنونكي كمان بوكسون وقت عفسري والد كله عفسري مشان تكتم مشان بور ممكن على ريس بدل ما قفكي لساريا عرايسكي marka wuxuu oranaya mar walba hadaa leeyahay waa ku noqday shaki wala qaba dawaaskii aan noqonaya way dhacdaa taas marka taa waalidkina laga jahal bixiyo taas waa muhiim ta kalena
wiilashan yar ama hablahan yar weli aan gelin waalidku weli la socon waxaan suuqa yaala si fudud uu gelaya in waalidkii laga jahal bixiyo aqoontii la siiyo wax walba waan ka hadalnaa Soomaali ahaan laakiin markay noqoto xanuunahan si kama hadalno qof walba qarsadaa qof walba tiisiisu qarsanaya moogta marka Soomaali waxay ceebti wixii ay qarsatay way ku qarsataa moogta laakiin lasma dhihi karo waalidiinta Soomaaliyeed aqoon uma laha marka la eego muqaadaraadka qurbaha ka jiro iyo marka midda Soomaaliya la eego marka xaruntiina markaan maqlay aad horta ugu farxay xarun ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo ay ka shaqeynayaan dad Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaalida aad ay ugu dhiirani karaan oo yacni ay u soo aadi karaan oo xitaa kula sheekaysan karaan oo ku dhihi karaan bal cunugii soo noqday xaaladda halkee maraysaa waalidiin badan ma jiraan oo guul ka gaara hadda wallahi way jiraan aad iyo aad bay jiraan waa runta aqoon badan uma lihin kasoo wax nagu cusub badankii waxaan naqaanaa qaadkii khamrida baan garanaynaa laakiin kaniinahan yara la isticmaalo oo qofkii si yaro fudud intuu ula qabsado hadhowna uu ku dhiman karayo overdose ku dhici karayo ama nafta ku waayi karayo moogta taa way nagu cusub tahay waa nagu soo batay si yaro fudud suuqana markii hore sanadba way sii jabayaan dhalinyaraduna si usoo galayaan si yaro fudud bay usoo galaan oo waliba dadkana aad bay kugu soo batay dhalinyarada marka ay soo galayso muqaadaraadka oo ay ku cusub tahay maxaa is leedahay uu keeni karaa ama way ku buushgareyn karaan sidee ku galaan muqaadaraadka waa su'aal fiican waxa siyaabo badan bay jirta si u galaan badankii waxay ka bilaabataa da'yar 12 jir 13 jir 13 jir markay ku jiraan iskuulka middle school ha badankii waxa lagu bilaabaa tijaabi curiosity xiiso inuu fahmo waxaan wuxuu yahay wuxuu tarayaa moogta taasi way jirtaa waxay ku bilaabaan wax la dhaho weed ama xashiiso Soomaali u taqaano kaayar bay xoogaa yar cabaan markii xoogaa socdo maalmo hadduu isticmaalayo ka horta ur buu leeyahay waalidku waa fahmi karayaa ka hadduu xoogaa ku wado cirku gelayaa mar walba moogta mar walba ka sii daraya laakiin wuxuu gaarayaa maalin buu gaarayaa markuu cirka galo intuu isticmaalo waxba ka tarin marka wuxuu raadinaya wax ka sii culus marka khamrida imanaya wax ka sii culus waxa imanaya kaleinahan ba imanaya taas waa curiosity ama qofku inuu rabo inuu waxan barto waa da'da markuu qof 12 jir iyo 3 jir waa normal way moogta ta kale waxa jirta dhalinyaro dhibaato haysato haddii noqoto waalidkii iyo hooyadii oo is haysta ama aabihii oo maqan ama caruur badan guriga joogaan oo waalidkii uu la tacaalayo ayaa dhaqaalihii guriga maalin walba maqan yahay marka cunugii ama gabadhii la socdo dad xun oo dadkii wax baraya ama stresskiibuu rabaa xanuunkiibuu rabaa inuu qofkii isloobisiiyo badankii waa self medication qof oo dhakhtar waa qof dawa saa isku qoray dawada moogta si uu u dego u nasto xanuun baa haya taasina waa xanuunaha dimirka layla way isku xiran yihiin hal shay weeyaan mukhadaraadka iyo xanuunaha dimirka aad bay isku xiran yihiin maaha laba waa mid waa qofka markuu daroogada iyo waxa barto dan dimirkiyaa soo galaa meeshii taas way soo galaysaa ta kalena qofka hadduu xanuuna dimir leeyahay uu galaa mukhadaraadka u isticmaalaa waxay xanuunkiiba ka xanuunkiiba ka dejinaysaa xanuunkiibu iloobayaa normal muu noqonayaa ama wuxuu dareemaya inuu yahay caadi inuu yahay ma ogtahay wuu degayaa laakiin degitaankaasi waa in yar saacado maalin hadduu intii mar dambe ku noqon uu isticmaalin sidii uu ku noqonaya marka waxay noqonaysaa qasab inuu sii wado ma ogta ta kale aan ku darayo meeshan Maraykanka qofku hadduu mukhadaraad isticmaalo waxaa la dhahaa vulnerable adult waxa weeyaan waa qof oo laga faa'iidi karayo ama la isticmaali karayo marka qofkii ilaa maskaxdii ma joogto waxina uu u baahan yahay marka qofku ka doonayo wax walba badan ka samaysan karaya marka taas waa muhiim weeyaan inaan ogaano qofkii markuu mukhadaraadka xoogaa ku jiro waliba qofkii aad taqaanay maaha wiilkii ama gabadhii aad taqaanay maaha isbedel baa dhacay because maskaxda dawooyinkana qofku isticmaalo maskaxda waxbay u tartaa malihi qofku ka soo kaban karaya uu soo bogsan ka waan aragnaa maalmo waa aragnaa qofku xoogaa yara ka maqnaado oo meel helo uu dego oo la hadlo oo la sheekaysto oo hadalahan xanafta leh laga ilaaliyo
qofkii moraalkiisu soo kacaya inka qofka marka waxaan ku jiro mukhadaraadka waxaa arkaysaa rafaad daal gaajo xitaa niyadiyo jabto dadkana ku nacaya because waa taqaanaa dadkeena waa mujtamacayna ama society dadkii waan yasnaa waliba qofka hadduu xanuun dimir yahay Soomaaliya dad qof xanuunaha dimirka waa la shiidaa halkan waxaa laleeyahay waa kii waana waa kii cabsanaa waa la caaya hadalahaas waxay ka daran tahay qofkii niyaddii jabinaysa hoos buu dhacaya moraalkiisii noloshadii buu ka quusanaya aan kugu daro arrintan markay soo babadatay marka waxaan ugu soo batay qofka inuu isdilo dhibaatada wuxuu isku dilayaa Maraykan baa joogta sharcidaa kaa xumaaday dadkii baa ku yasaya dadkii baa ku caaya wadankii kama bixi karaysa meel walba wuxuu arkayaa meel madow kama bixi karayo marka mustaqbalkii rajadii buu beelayaa qofka markuu rajo beelana uma arkayo macna inuu sii noolaado wuxuu soo batay ma lagama hadlo dhimashada dadka isdilaya kan aana lagama hadlo cali marka adaa hadalka ku wato waalidiinta marka in cunuga isdilin inta aysan gaarin waalidkii maxaa kaga aadan sidayse ku garan karaan markuu cunugan muqaadaraadka iyo waxyaabaha baranayo sidoo marka idinkula soo xiriiri karaa ama caawinaad u raadin karaa waa su'aal aad u muhiim dhibaatada weyn waalidku markii uu dareemo wax ama either waa too late ama waqti dambe ama markuu dareemo early oo ogaado in wax jiraan uu qarsadaa markuu raadinayo caawinta raadinayo ama dhakhtar geynayo waxa weeye markii arrintu crisis gaadho ama xaalad khatar gaadho markaasna dhaawaci waaba dhacay talada faraha ka baxay marka waxaa la rabaa hadduu arko waalidkii cunugii inuu isbeddel kusoo dhacay hadday noqoto dhinaca akhlaaqda dhinaca iskuulka dhinaca maqalka dhinaca guriga hadduu waalidkii maqlayn dhibaato jirto markaas waa inuu caawin raadsado dadkaynu way ka baqaan waliba St. Cloud waan fahmi karaya St. Cloud iyo Wilmer waa magaalooyin yaryar marka waalidku badankii wala aniga tuulada degana St. Cloud naga sii weyn marka waxa marka dal la dhaho ina heblaaya waxaan ku jira waalidka baqaa shaambad baa ku dhacday marka uu qarsanaya ma ogtahay ama magaalo kale u geynaya ama Soomaaliya u diraya daxal maaha taas dawa maaha marka dhibaatadii waa sii kordhaysaa marka waxa la rabaa hadii Soomaaliya loo dirana cunugii balwada inta uu ku lahaa buu halka ku yeelanaya oo biil baa la siinaya oo ka sii daraysa imka kaliinahana ka laga qaybinay waa yaalan Soomaali way soo galaan waliba halkan ba control pharmacy ma tegi karo ma doonan karo halka pharmacy uu ka soo iibsan karaya dad baan ogyahay Egypt loo diray oo ay quraanka soo bartaan pharmacy uu ka tagaya uu soo iibsanaya hadii ka waran waalidka meesha uu ka guuri lahaa ama state kale u guuri lahaa ama Afrika u wadi lahaa soo kama fiicno in hay'adaha caawiyo sida idinkoo kaleeto in la soo xiriiro waalidkii isha ku hayo cunugiisa horta anigu ma diidni qofku inuu guuro laakiin waxaa la rabaa qofka marka hore inaad daweysid inuu ka soo go'o laakiin qofkiiyo la soo daweyn oo wali dawadii ku xiran khadiraadkii ku xiran inaad dhoofisadoo geysid Soomaaliya ku soo tuurtid taas waa laga fiican yahay qofka horta marka hore la soo xanaanayo dawa la soo siiyo ka soo bogsado markaana waa la bedelaa waa la geeyaa environment kale la geeyaa Soomaaliya la geeyaa laakiin ina qofkii la joogtid laakiin haddaa leedahay waa Soomaaliya ku tiri waxay ka dhacdaa aad iyo aad soo noqotay waliba iminka wiilashii iyo hablihii wax la geeyaa Soomaaliya la geeyaa one way ticket xarumaha dhaqan celiska la geeyaa qofkii markaa waa la tumaa wiilashii gabriyo cadaadis fara badan qofkii caawinaad u baahan la tumaaya waalidkuna war kama hayo wuxuu isleeyahay cunugii waa xarun lagu daweynayo quraan baa lagu akhrinayaa laakiin waa la tumaya cunugii calaamado badan wiilashii baa soo noqonaya waliba safaaradda Maraykanka baa soo dhoofisa markii ogaadeen dhibaatadana ka sheegaan marka waalidka dhib ma soo gaaray waalidku wiilashii habluhu ma dacweeyaan waalidka laakiin cuqdadii gaaraysa yani jabkii dhacaysa yaa ma xishan ku geeyay waa waalidkaada ku geeyay yaa lacagta bixinayay waalidkaada daawacii iyo gumaysidii iyo torturkii lagu sameeyay cunugaaada adaa waalidka lacagta ku bixinayay waxaa leedahay halkan baa leedahay ceebtaada qarsho ama reerkaada shaambada ay ku dhacay halkan bay yaalaan xarunihii lagu daweynayay qofka hadduu ingiriisidii garanayo meelo badan baa jira hadduu ingiriisidii kan meel xarumaha Soomaalidu ka furayn baa jira idinka marka ka xarun ahaan waalidiinta iyo dhalinyarada caawinaysaan wax lacag ka qaadanaysaan
waxay ku fiican tahay arrintani dowladda qabta especially qofka hadduu insurance-ka dowladda leeyahay dowladda qabta dowladda bixinaysa 100% iyada bixinaysa waalidka wax lacaga laga rabaa ma jirto Soomaaliya marka geysa tigidhkii waa laga rabaa waxa la siinaya waxa uu qabanaya halka qofkii marka la xarayo xuquuq buu leeyahay suxum lama hadli karayo meel uu seexday in la siiyo weeyaan respect weeyaan waqti hadduu meeshii ka helayna 10 meel kale jirto u tegi karayo waqti qofka hadduu luqadii garanayo weeyaan dhibaatada kala haysata dad badan oo imka imaaday oo luqadii garanay oo balwadan ku jiro marka meelaha cadaanku leeyihiin oo luqadda English lagu hadlayo ma fahmi karayo because waxa badankii waxa la isku keenaa waa 12 qof ama 10 qof meel fadhiya meel wada xareeyo way ka sheekaysanayaan mid wala dhibaatadii ku dhacday so wala kala faa'iidaya qofka marka cusbaa ee Soomaaliga bas yaqaanay luqadda kala aqoonin ugdada halka ka galayso ma bahadli karayo ma garan karo dadka sheegaya marka wuxuu u baahan yahay meel Soomaali joogto dhaqankii meel loo ogol yahay tukado waa muhiim weeyaan salaadii iyo diintii waa muhiim weeyaan arrintan waa salaadan soo galay waa muhiim inay wadaadahu iyo dadka diinta inay ka hadlaan idinka marka culimada iyo waalidiinta cashiro gooni ah ma jiraan oo aasiisaan si bulshadii wax looga qabto muqaadaraadka waan ku jirnaa waana la shaqeynaynaa intii u baahan inaan la shaqeyno oo la hadano lacag la'aan lacag ma jirno waxaan waa wacyigelin aad because balwadan waa ku dhibaysaa way ku dhibaysaa wiil ama gabar Soomaalidu arkaysid laamida joogo rafaadsan oo gas station taagan oo dawarsanaya way ku dhibaysaa lacagna dhibaatadana way sii saameynay ubadka kale ee soo koraayay wuxuu leeyahay walaaluu leeyahay habuu leeyahay waxaas way saameynaysaa moogta si uu galay wiilkaas siduu u galay ama gabadhaas siduu u gashay 10 kale ka sii dambeeya way soo jiidaya waarun weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamij aynu ku wareysanayno muqaadaraadka ee la degtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota ee aynu degannahay waxaa barnaamijka maanta marti inoogu ah Cali Aadan oo nagu soo booqday xarunta Wilmer TV ee ku yaala xafiiska CIC ee magaalada Wilmer gobolka Minnesota Cali qaybaha dambe ee barnaamijka inagoo ku guda jirno adoo ka faa'iideysanayo barnaamijkiina waxyaabaha u qabataan muqaadaraadka iyo howlaha badan ee aad qabateen intii aad furteen ma jiraan barnaamijyo aad sameyseen oo dadka ay arki karaan waalidiinta oo ay dhihi karaan xaruntaas rabnaa inaan aadno waxyaabo waalidiinta aad kula hadleysaan ama wadaadada aad kula hadleysaan si waalidkii uu dhiirigelin u helo in xaruntiina idinku soo booqdo ee magaalada Singaloor haddana aad noo sheegtay inaad Wilmer ka furan rabto marka barnaamijyo noocaas ah oo aad sameyseen oo waalidiin aad kula hadleysaan ma jiraan way jiraan Layla YouTube ay ku jiraan xaruntiina hadda qofku Google gareeyo ama Facebook-na waan ku leenahay account YouTube Instagram-na waan ku leenahay laakiin badankii Facebook baxdan baa laga helayaa waliba wacyigelin badan baan ka sameynay SoundCloud rajana waxaan ku qabnaa inaan halkan wacyigelin aan ka sii wadno laakiin imka waxa hadduu waalidku u baahan yahay caawa hadduu imka u joogo qof oo la tacaalaya ama gabar ama wiil ahaato la tacaalaya xanuunahan oo ogeyn meel uu ka bilaabo dhibaatadana haysatay waa taa weeyaan waalidkii sidoo raba inuu wax qabto waadana aqooni meel ka bilaabo dadkii u dhawaana dee mala aqoon uma laha ama uu ka xishoonaya inuu weydiiyo because wuxuu isleeyahay waa lagu shaambeynaya marka laakiin shabada iyo xishoodka inaan ka tagno oo aan rabno inaan ubadkeena wax u qabano waalidiin fariin noocay aan siin lahayn waa 100% aduu wiilka ama gabadhaas ku joogta dadkan kale Soomaalida ku caaya ama wax ka sheegay waxba ka cunuga adduunyo ku jooga hadaa dhaqaalisan weydid ama meel geen weydid oo caafimaadkiisa ku dadaal weydid cid ku joogaysa ma jirto waxba laga sheegay wax ka galama laha wax macnay sheegaysa ma jirto wiilka gabadha hadda dhaqaalaystay oo daweysid oo ilaahay uu xanuunka ka baabiyo aday ku shaqeynaya Cali waxaa jirto qof aan balwad lahayn haddana la saaxiib ah qof balwad leh waana dhalinyaro ama high school ha dhigato ama jaamacadaha dhigtaan marka waalidka markuu dhaho hooyo waxaan ma ku jirtaa uu dhaho maya aniga kuma jira laakiin saaxiibkayga ku jira saaxiibkana kala ma hareeno marka fariin
caynkee ayaa waalidka siin lahayd ama dhiirigelin ama si qofkaas balwada leh qofkan kaleeta uusan u saameynin ilaa saaxiibka waxa uu yahay ayaa noqonaysaa Soomaali inta badan saasay tiraahdaa صح marka maxaa dhihi lahayd boqolkiiba boqol weyn taas weyn taasaan ka hadlayaa waxay galintii weeye waalidka hadduu fahamsan yahay da'daasa lagu bilaaba iyo waxaasa lagu bilaaba marka waalidkii inuu sugoba maaha qofku intuu geliya yaraan baa laga bilaabaa 6 jir 7 jir 9 jir baa laga bilaabaa mogta inaa la wacyigelintiyo waxaan baa la isticmaalaa haddaa waxaan qaadatay waxaasaa kugu dhacaya mogta cunugii markuu intuu wiil kale u iman lahaa oranaa arrintan tijaabi adiga u sii sheegtaa ka warhayaa waxaan hadduu isticmaalo meeshaasay geynaya mogta tani waalidkii wiilashii ama hablay waa inay u bartaa inay waalidka u tegi karayaan la hadli karayaan kalsooni ay ku qabaan inuu waalidku la sheekaysan karayo la saaxiibay la hadli karayaan mogta kus cunuga hadduu loo dhaho waxaan tijaabi inuu u tegi karayo waalidkiisa oran karayo aabbo iyo hooy waxaana maanta la isoo dhahay tijaabi noocaas u ahaa taasina dhaqankeenu ka duwan yahay because aabbo iyo hooyo cabsi baa uga qabnaa waa lama hadli karayno ama waxaa laga yaabaa aabbo iyo hooyo inaysan muqaadaraadba kala sheekaysanin cunugii waxaas wacyigelintaas u sheegin markuu u sheegi rabana dhahaa warnaga ama waxaa sheegaysa waxba kama jiraan marka dhibaatadaasna wayna haysataa waa haysataa waxa badankii waalidka carruurta waxaan kala hadlanaa waxa weeyaan quraanka xafidkii salaadii waxbarasho hawshii guriga qabo laakiin asxaabtaada waxay soo sheegeen xagga soo baratay yaa la saaxiibtay waxa ma weydiino marka I think inku waa isbedel ma raba inaan horumar la gaaray isbedel waa jira imka dadkeena waa aad u soo furfurmeen meelo badan oo laga hadlaa laakiin I think ina dadaalka especially arrinta mukhadaraadka in la hadlo masaajidaha wadaadaha dadkeena badanka wadaadaha wax ka maqlaan qodba jimcada kale lagu daro mar walba waxba kama maqlaan waxay ka maqlaan badankii wadaadaha marka wadaadii culays badan baa saaran weynay arrintan ka hadlaan waan ogiyay wax ma qaban karayaan qofka hadduu xanuunsanayo ku jiro laakiin waxay ka hor wacyigelinta roolkooda waxay ka qaadi karayaan waa wacyigelintii ka hadalkii laga hadlo inaan laga daalin wax badan waa laga hadlaa laakiin arrintan xanuunahan maskaxda iyo mukhadaraadka labadaba waa isla socdaan arrintaas aad iyo aad qayb weyn laga qaato haddana sidaa sheegtay waxaaba soo dhacday kiniinyo la cunaayo oo ilmihii overdose ay noqonayaan oo laga yaabaa 20 minute inay nafta uga baxdo oo Minnesota hadda research la sameeyay ilaa 30 ilaa 25 ilmood oo Soomaaliya ku dhimatay marka kuwaasoo kaleeto sidee u wacyigelin lahayd waalidiinta daawada inaysan ciyaalka ay og yihiin waalidkii waxaan kala jeedaa yani waalidka inuu attention badan u hayo caruurtiisa su'aal aad u fiican weeyaan horta overdose ka rabayna macnaheeyo af Soomaali ku sheego overdose waxa weeyaan qofku markuu kaliya qaato naqaska ku dhigaya qofkii dhinaca sababaha naqaskiisa u neefsan lahaa baa istaagaysa marka qofkii uu ku dhiman karaya laakiin arrintan waxaa jira dawaad la sameeyay oo dawada qofkii hadda lagu mudo ama sanka lagu shubo uu qofku ka soo kacaya waa la badbaadin karaa badankii cirbad la duro laba nooc weeyaan waa mid ibrada lagu mudo waa naloxone baa la dhahaa ibrada lagu mudaa qaybta kalena waa sanka lagu shubaa badankii ambulance-ka qolada 911 hadda wacdin haddii markii imaadaan bahalkan sanka lagu shubo way ku shubaan qofka uu soo boodaya marka 911 waa la geeyaa dhakhtarka la geeyaa marka qofkii hadduu suuxo hadda horta kuu joogo qof wiil ama gabar oo mukhadaraad isticmaalo guriga kuu joogo waa inaa haysataa waa inaad dawadaa soo qaadato anu waan bixinaa waxaan ku dadaalaynaa inaan halkan keenoto inaad familada qoysaska siisaan gurigana kuu yaalo guriga hadduu wiilku ku yaamo gabar kuu jooga mukhadaraad aduu ogtay cid uma baahan cid u sheegtay laakiin dawadaas waa inaad sii haysataa qofkii hadduu ku dhaco naqasku ku dhago gurba degdega inta 911 ku imanayo 911 ku imado iyada hawsha kasii wadi kari laakiin qofkii ku imanayo waa badbaadin karaysaa su-aashii iigu celiyay su-aal fiican bay weydiisay hadda midda aan ku weydiiyey waxay ahayd waalidiinta sidee u fahmi karaan ilmaha overdose-ka markay noqdaan waalidiin badana waxaa jiro caruurtii markay yani caruur aan dhihi dhalinyarada markii ay daroogada isticmaalaan ama wax uu soo cabay gurigii ay waalidiinta ka burinayaan ma garan karto marka hooyadii ama aabihii inuu overdose yahay ama inuusan ahaynba oo albaabka ka xiranayaan marka waalidkaas camal see u caawin karaan caruurtooda horta tana sheegaysa overdose ku kala duwan overdose ku xogaa markuu naqasku ku dhago uu suuxo uu miirku ka maqan yahay kaasa overdose kala dhahaa laakiin qofka hadduu waalidku isticmaalay mukhadaraadkii oo rabo inuu caawiyo mana rabo inuu dabadda u tuuro
aan horta lama talinayo inuu dabadda u tuuro waa inuu waa inuu soo tijaabo xareeyaa caawiyaa waxaa la dhahaa step inuu raaco janjarada inuu raaco waaye. marka hore inuu soo jiito la heshiiyo la hadlo ogaado dhibaatadii meelahan lagu xanaaniyo geeyo ka dhaadhiciyo badankii qofka marka hore dhibaatadii wiilkii maba fahamsanaba ama gabadhii maba fahamsan in dhibaato haysato marka hore inaad ka dhaadhicisid in inaad dhibaato u haysato sheegto ها markuu fahmo oo meelo geysid oo kow iyo laba moogta marka dabadda loo tuurayo marka qofkii ka quusatid laakiin markiiba hadduu ku ogaato dabadda u tuurtid waayo wala dad baa jooga waxaan u diyaar ah waa laga faa'iidaysanayaa moogta wax meelo xun baa la geynayaa waa lagu shaqaysanayaa hadduu noqdo crime buu gelayaa moogta jeel buu gelayaa moogta wixii kaysaskii umaa sii badnaanaya moogta aduna waalidka kama helisid kaysaskii markay saa u bataan baa loo qabsanaysa lacag qarashkii umaa kuu badnaanaya waa xabsigii kasoo daa wiilkii maanta beri ku noqo haddana maanta kasoo daa waa run waa jira walaa dhibaatooyin badan waalidka xabsiyada Minnesota Soomaali badan ka buuxda waa ka buuxaan waliba wuxuu mukhadaraadkaas waxay kuu geenaysaa wax walba moogta gaari baa dhacaysaa dad qof baa dhacaysa waalidkaadaa dhacaysa moogtahay taa rabo inaan ku daro su-aashaada ay soo xasuusay waxa weeyaan horta hadduu dad weyn odayaal iyo islaamo waaweyn baa noo jooga waalid waaweyn baa noo jooga dawooyin badanna maraykan weyn dawooyin badan baa noo soo qoda dawooyinkaas carruurtu aad bay u maskax badan yihiin way la socdaan dawooyinkaas guriga kuu yaala ma controlno meel walba iska haddaad tagtay aqal soomaaliga oo arkaysaa dawo meel walba iska kaniinka xanuun baabiyo kale kaniinka xanuun saasa lagu bilaabaa kaniinahan moogta marka kaniinkaas u eeganaya maalmo xabad buu qaadanaya maalmo xabad buu qaadanaya wiig ma ku waday waaba la qabsaday jirkiisa maalinka dambe uu kasii badinaa tirada maamooyinka iyo odayaashu ma qaatan kaniinigooda meel bay iska dhigaan waxaa arkaysaa kaniinidii oo kii yaala mid kalaa u yimaada marka wiilkii ama gabadhii markii haddii ku bilaabaan gurigii marka balwada gurigaada ka imaanaysa abar sugayni qof kale kuu keeno gurigaada kaniin hadduu waalid ama kuu joogo waalid weyn ama sidoo laakiin dhalinyarada cuni karaan dadka waaweyn kaniiniyada loo qoray waa xanuun baabiya waa xanuun baabiya asagana pressureka la haysto sida stresskii guriga haysta stresskii imka u fiirso gurigu waa dhaqan Soomaali dabadduna waa dhaqan Maraykan laba adduun buu ku nool yahay moogta wiilasha iyo habluhu laba adduun ay ku nool yihiin marka waa stress culays baa saaray waalidku wuxuu ka rabaa sida Soomaalida quraanka inuu xafido dhaqankii inuu hayo iskuulkiina wuxuu rabaa inuu la qabsado cadaankii iyo dadkan kale moogta meesha laba adduun inuu isku keeno way adag tahay moogta waalidkii hadduu taa fahamsan culays buu saaraysaa wiilkii ama gabadhii marka sometimes waxaa rabaa in wax ka dejiyo stresskii waa inuu barto inuu iska dejiyo stresska inuu sadoo kaliin qaato laakiin da'da yar hadduu ku bilaabo inuu qaato kaliin hal xabaa ku filan uu dareemo happy inuu stresska waa la qabsanay wuxuu leeyahay dawadii baan hayaa waqti waliba dee guriga ku taalaa waalid weyn ama maamo weyn guriga ku joogo oo dawadii ku taala kaliin maalin ka qaadan waalidkiina ma fahmi karo dhalinyarada waxyaabaha ay cunayaan marka hore waxooda la cunaayo dawooyinka haddii guriga yaalan dawooyinkaas waa la xiraa meel adag baa la dhigaa waxay yihiin oo inaad fahamtid carruurta inay ka fogaadaan dawooyinka weeyaan taas waa muhiim meesha waxay ka bilaabayso aqalka cali oo midda ugu dambeyso weli waxaynu barnaamijka bartamaha kaga jirnaa cali aadan oo ah madaxa hay'adda Bridge Healing Center ayaa wareysiga aan la yeelanaynaa waxaa jiro dhalinyaro fiican oo high schoolka nabad ku dhaafay jaamacado iyagoo dhigto oona diyaar u ahayn inay muqaadaraad bartaan haddana dhalinyaro kale ee saaxiibadood wax ugu daro iyagana ogeyn saas oo la qabsado kuwaas marka tala ahaan maxaa siin lahayd taasina way dhacdaa laakiin way yar tahay because hal mar hadda lagu daro jirkaadu lama qabsanayo waxay noqonaysaa muddo isticmaashid si jirkaadu la qabsado laakiin waxaa dhacda si yar fudud kale kusoo galaan hadduu qofku ku dhaco wax la dhaho waxaan trauma ama shock ama wax weyn kugu dhaco haddii noqoto dhimasho ama waalidku kaa dhinto ama hooyo kaa dhimato ama aduu qof ahalkaadii u dhaweyd kaa dhinto badankii dhaqankeenu waxa weyn 3 cisho la isku imanayaa 3 cisho waa dhamaatay laakiin qofkii wali kama bogsan qalbigiisa jaban marka marmar wuxuu u baahan yahay qofkii inuu waxaan iska ilowsiyo meeshaas way ka bilaabi karaysaa waxaa dhici karaysaa
توقتني حبذا لسه قبته قال عشان اسكت دعي قف كده كل على تاس عبسي بكنيس والمرة في بهين قف إنه ستريس كأسكير كرير مش ماشي كبلاوي ها مركا جامعتي قبل متى إن ويل كيا ما قبل ممكن جامعة اللوط درو اللي كل بقى والد كلا وقت جاي والد كنت قال بقى دون ويان وقت ودون كان وجامعتي شوقة وأمريكان وده كان كي خمر وبناي وخدرات وبناي ها ويسكت تجابين يا تين عسوك صدق لقب صدق مباركيا markuu ka soo dhamaado jaamacadii ma jari karo wuxuu la soo qabsado already uu ku jira wadada marka meelo badan bay ka bilaabi karaysa laakiin wacyigelinta hadaa yaraan laga bilaabo marka quraanka dugsiga lagu dadaalay in la geeyo marka cunugina yaraanta ku sii bilaabo hada dugsiga la baro oo la roo waxa jira macallimiinta laftirkooda ay ku daraan wacyigelinta in muqaadaraadka ay ka fogaadaan aad bay u muhiim tahay because waan aragnay wiilal badan oo حافظ قرآن ما شاء الله ودمي ما شاء الله وهذا دروغة قال ها وين هذا دروغة عندنا مديس هذا العقل هذا هذا عده هذا مذوبة ماله كودين اسمها ها وانا أرجعنا دخاتير هوي أبو دخاتيرة وبينهم جود وكشرو وحبق مقام كرام حبق مقام كريم جنانت كمركب برنامجك محا أذو كفى إذا سنة جانس كمان سومال ويلمر تي في waalidiinta ama dhalinyarada ama culumada ama waxgaradka dhammaan dadka Soomaaliyeed maxaa fariin u diri lahayd adoo ka faa'iideysanaya jaaniska insha Allah laba shay ko horta arintan waa arin bilaaw dadaal badan bay u baahan tahay hal qof ma qaban karayo ummadoo iskaashato dhan bay u baahan tahay culumadii community leaderskii waalidkii caruurtii inay iskaashadaan waxaan laga hadlo oo la qarsan oo la yareysan kusoo aafo sii badnaanaysa weeyaan ta kale waxaan rabaa inaan dhaho dhaqankii xoogaa inaan bedelno weeyaan qofkii xanuunkan mukhadiraadku waa xanuun weeyaan waa inaan saa u qaadano maaha cayb oo laisku caayo maaha ceeb maaha waa qof waa balwad ku dhacday imtixaan weeyaan waa xanuuna qofku kasoo kaba haa waa qadar rabbi u galay laakiin wuu kasoo kaban karaya uu kasoo bixi karayaa noloshadiisa meeshiisuu kasii wadi karaya marka qof haddaa la arko meelahaas ama arrinta la tacaalaya haddaa wax u qaban karin afka ka reebo hadal cayda iyo hadalka iyo sitaan taasaa ugu dara niyadii qofka sii dhisaya sii dilaya qofka niyadiisa sii dilaysaa ma ogtahay hoos buu usii dhaadhacaya marka Soomaalida wuu ka cararayaa dadka kale waa cararaya markaas loo markuu godka galay naxariis ma haddaan isku naxariisan weyno cidna joognaa baraf baan joognaa cidna ma maqna haddaan isku naxariisan weyno caruurtan u naxariis masaajidaha dadka wiilasha iyo hablaha la soo dhaweeyo yaal dabada loo tuurin qofka hadduu cabsan yahay hadduu cirka ku jiro caawin ala caawiyo laakiin ina la fogeeyo xataa xarunihii masaajidii way ka cabtaan imka xumalanay wadaadada aad bay waxaan way maqleen message-kan way fahmeen way soo yaraanaysaa laakiin waa in lagu celceliyo oo la iskaashado oo arrintan wax laga qabto aad ayaa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cali Aadan oo ah madaxa hay'adda Bridge Healing Center xaruntoodu ay tahay magaalada Singalore gobolka Minnesota wuxuu nagu soo booqday xarunta